Assalaamu calaykum. Waa salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waa salaamay ummadda reer Puntland, ummadda Khaatamo, dowladda Khaatamo SSC iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ka joogto. Waa salaamay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la dhahaa Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad, ku magac dheer Korneyl Raamole. Marka arrimo dhowraan ka hadlayaa oo dalkeena Soomaaliya kasoo cusboonaaday ayaamahan, gaar ahaan gobollada dhexe iyo mudug iyo gobollada Puntland meelo ka mid ah gobolka Bari, gaar ahaan gobolka Bari magaalada Boosaaso. Dhacdo ayaan dhawid ka dhacday gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso, oo taliska ciidanka booliiska adigu waxyeelo loo geystay ay u geysteen ciidamada BSF qaar ka mid ah, oo niman macnaha inta la xiray dambiilayaalaha booliiska la xiray haddana xabsiga lagala baxay oo ay kala baxeen qaar ka mid ah ciidamada BSF. arrintaas oo arrin khaldana iyo dhacdooyin kale booliiska taliska booliiska Puntland lagu sameeyey dhowr jeer hore 2000 iyo adigu sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkii ka horreeyay xataa waxyaalo lagu sameeyey oo gafa baan rabay inaan ka hadlo. Marka arrintaas waa dhacday, inkastoo aan maqlay in taliska BSF qaar ka mid ah ay ka bixiyeen raaligelin. Marka wiilashaan la hadlayaa ilmo Cismaan Cabdullaahi Diyaano Asad iyo Jalaal Asad iyo Jalaal Maxamuud. Marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal, waxaa ka mid tihiin ciidamada difaaca Puntland baa ka mid tihiin ciidamada ugu adag oo ciidamada Puntland ay ku dhaarato baa ka mid tihiin. Marka walaalayaalow, wixii dhacay way dhaceen, wax dambe inaan dhicin baan rajeynayaa. Anigu waxa idinka maqana dee maba garanayaba. Aabihii Jalaal Cabdullaahi Cismaan Diyaan nin halgamaa oo geesi iyo wadaniyo ahaa, ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga hore dalka. Dhaxalka ka dhaxasheen aabihiin baan aad dhaxasheen, ciidamo idima diidana, xaq baa u leedihiin. Marka ilmaada rayaalo gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa. Idinkoo dowladda iyo maaragtay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni kulligiina ay sanantihiin, aniguna aan Korneyl hore ahay oo magacayga aan kugu celiyay waxaa la dhahaa Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad Raamole oo ku magac dheerahay. Dibaddan joogaa. Marka dalkan cadow badan buu leeyahay, meel fog baa laga keenay, cadow badan baa kusoo wajahan, cadowyo badan baa jira. Ilaahay naga qabto, dalkiina difaacdaan baa ladinka rabaa. Marka walaalayaal, waxay dhaceen way dhaceen, wax dambe yeena dhicin. Dalkana hala difaaco. Argagixisada iyo cadiga gudaha iyo cadiga dibadda labadaba ha laga difaaco, kulli cadow oo dhan. Waxaan kaloo ka hadlayaa maaragtay ardada reer Puntland oo qalin jebinayay oo dowladda imtixaanka ay ka qaadana waa u mahadcelinayaa dowladda. Ardada reer Puntland waa ku faraxsanahay inay qalin jebiyeen, waa u ducaynayaa, Allah guuleeyaan leeyahay. Alxamdulillahi rabbil caalamiin ugu soo dhamaatay. Dadka reer Puntland weligood waa ku fiicnaayeen waxbarashada. Waxaan kaloo rabaa hambalyo inaan u diro banooniga kubadda cagta oo ka dhacay Garowe, oo kooxda ciidamada qalabka sida Horseed iyo kooxda Hambaaburo ku guuleystay. Hambaaburo libax bay soo wadaa, jacaalkina hirdiga waa kula helaa. Marka ayagaa guuleystay, Hambaaburo guuleysatay. Alxamdulillah, waa hambalyeynaya. Iyo dagaal ka dhacay gobolka Galgaduud, gaar ahaan inta u dhaxaysa Xeraale iyo Caabud Waaq oo lagu hoobtay, oo maaragtay dagaal sokeeye ah oo dhimasho badan ilaa 50 ilaa 60 kor u dhaafsay ay ku dhimatay, oo dagaal sokeeye ah. Marka hadda dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhashaan leeyahay. Dagaalkaasna degdeg ha loo joojiyo, intii dhimatana Allah u naxariisto. Dagaalkaas dowladda Puntland, ogaasyada, garaadyada iyo beesha daarood oo dhan soo farageliyaan, iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda aan dariska nahay walaalaheen Galmudug iyo inay joojiyaan. Ilaahayna ha joojiyo. Iyo dowladda federaalka xataa inay wasiirka arrimaha gudaha Yuusuf Cali Xoosh iyo arrimahaas in dagaalka la joojiyo, dagaal dambe uusan dhicin. Soomaali 30 iyo dhowr sano ay dagaalamaysay, cawaaqib xumaa laga dhaxlay. Marka ilmaada rayaalow, dagaalka hala joojiyo. Soomaaliya oo dhan ha isugu tagto. Ilaahay baa idinkugu dhaariyay, dagaalka hala joojiyo. Waa dagaal Soomaaliyeed, waa dagaal sokeeye. Dhiig Soomaaliya maanta inuu naga daato maahan. Dagaalkaas inta inaga dhimatay hadday maanta ku dhiman lahaayeen, xaq ku dhiman lahaa dhan bay ahaan lahayd. Dagaal waxaa inuga baahan gobolka City galbeedka dowlad deegaanka ayaa Amxaara rabtaa inay qabto. Itoobiya kusoo duushay. Dagaalka halkaas ayaa inuga baahan in laga difaaca dalka dowlad deegaanka iyo Soomaaliya in laga difaaca Amxaarada iyo Itoobiya cadowgaas.
oo ku habbooneed. Marka in maadeerayaal waxay way dhaceen, dagaal dambe iyo dhicin. Marka waa anigoo ah Korneyl Farxaan Cabshir Maxamuud. Siyaad khayr badan, barwaaqo iyo bashbash baa idin rajeynayaa.